sidaa darteed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay istaciinuu biumuurikum alkitmaan war wixii ilaahay uu hibe idiin siiyey maalka oo keliya maahane wixii ilaahay hibe idiin siiyey qarsada lianna likulli nicmatin fa inna likulli nicmatin xasuudun nicmo kastoo ifka taalla cid unbaa ka yu-ato maxruuqaho xaasid ku ah marka nicmooyinkiina had iyo jeer asturta ayuu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ruuxu had iyo jeer quruxdiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo inuu mar walba fagaarayaasha isla soo taago ma fiicna in badan waxaa anigu aan arkay ilmo yar oo carruurahoo intuu raqam waaxid ka galay iskuulka macallimiintii intay fagaaraha soo joojiyeen isla maalintaa wixii laga bilaabo aqoontii ay ka masaxantay ama dugsigiiba aadi kari waayo aqoontiiba la nacsiiyey anigu waxaan goobjooga ku yaroo aan dhalay ayaa 3 jir ayuu carruurta ku raacay madrasaduu aaday malcaamadda markaa isagu ma dhigta wuu dhegaystaa uun siduu isooga dhegaysanaya wuu 5 jis carruurtii akhriyaysa ka xifdiyey dadkii baa yaa wax maasha allah yidhaah markii dambe ilmihii madrasadii waan ku kari waayey carruurta hadduu raacana intuu ka leexduu guddaafad fadhiisanaya habeen keliya 5tii jisba maskaxdiisii ay ka dhiliid garoobeen habeen keliya ayay maskaxdiis ka dhiliid garoobeen marka bahashan ishu waa halis weeye waxaanan uga hadlayaa aqoonaan u leeyahay weeye oo in badan way soo martaa marka qofka muslimka ahi inuu maxaasintiisa qarsado madaaristan ilmaha xayeysiiska looga dhigayana in laga daayo madrasadii buu rabaa inuu xayeysiis u samaysto ardaygii ugu fahmada badnaa ayuu soo joojinayaa meel fagaare dabadeedna markuu ka degaba masrixii ilmihii maaha markii buu isbedelayaa marka goorta haddii ilmaha shahaado la siinayo oo ilmahaagu uu ku yidhaahdo aabbow wankan galay ha u ogolaanin inuu isagu fagaara istaagee adigu u soo qaad xataa wixii la siinayo adiga waalidka intaad tagto wixii jaa'isad la siinayo wixii hadiyad la siinayo adigu intaad ilaahay cuskatooda aayaadkaaga iska akhristo u soo qaad laakiin carruurtiinna fagaaraha ha keenina oo wixii ilaahay haybad siiyey yaan looga dhiginin xayeysiis iskuulkaasaa carruurta si fiican wax u bara si loo yidhaahdo darteed bay inta badan carruurta fagaaraha u keenaan hadhowna waxaan xasuustaa wakhtigii siyaad barre sheekh cabdirashiid cali suufi baa wuxuu kaxeeyey inan 7 jir buu ahaa sheekh cali dheera awuu ahaa nin garanaya waxaa la geeyey sacuudiga sacuudigaa la geeyey 30 qur'aanka caalamka isagaa raqam waaxid qaatay caalamkao dhan 7 jir baa ilmahaas markii dambe ee meeshii laga soo celiyey madaxaba bura ka soo baxday ilmihii yaraa madaxay bura ka soo baxday caalamkao dhan baa tvga laga daawanayay raqam waaxid kuu noqday marka fa ina likulli nicmatin xasuudun nicmo kastaaba xaasid bay leedahay marka haddii ilaahay nicmo ku siiyo nicmat almaal ama nicmat alcilm ama nicmat alquwa waannashaad ama nicmat alawlaad ama nicmat aljamaal hadduu ilaahay ku siiyo asturo lagulama qabo asturo haddii kale waxaanad hadhow mahadinaynin baa kaaga iman doona waana ta uu ina barayo nebiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maandhooyinow markaad meeshaa tagtaan idinkoo sunsumaya oo 11 nin oo dee geedkaa wada laaleega aad tihiin albaab keliya ha ka gelina wadkhuluu waxaad ka gashaan min abwaabin mutafariqa albaabo kala duduwan ka gala waa sirta nolosha haddaanad qur'aanka kala soo bixi karaynin waxaa tahay kamahali alximaari yaxmilu asfaaran qur'aankani طib الnabowi iyo طib اlmaadi iyo طib الruuxaani intaba wuu isugu jiraa markaa nebiyullaahi yacquub ka barta casharkanuu ina barayo waa taxadar can ilcayn caynta inaad ka feejignaato markaan saa leeyahay mar walba de haddana yaanay cabsi mar walba ha cabsanine
adigoo ilaahay isku xiraya asbaabtii lagaga xijaabanaya isha la kaale waa adkaarta sabaax adkaarta masaaga iyo weysadaada iyo sadaqada waxa ugu fiican ee cudurka lagu daweeyaa waxa weeyaan sadaqada iyo salaada labadaa ruuxu hadduu ilaashado walaa cayn baan karayn walaa sixir baan karaynin beri baa waxaa aan idinka yaro sheekeeye naag waxaa ii timi naag baa ii timi waxay iga sheekaysay naagta kale uga sheekaysay ninkeeda ayay doonaysay inay sixir maxabbo ah u samaysato oo uu jeclaado sixir maxabbo ah bay u samaysanaysay mid sixiroole ah ayay islaan sixirooley ah ayay 4 jeer ku noqotay oy leedahay ilaa hadda wax isbeddela ninkii kuma hayo markii dambe islaantii waraysatay waxay tihi mahaadhe bal ninkaaga iiga warran siduu ku yahay weysada markaasaa waxay tidhi haddii uu guriga ka baxayana weysu ku baxaa haddii uu seexanayana weysu ku seexdaa islaantii sixirooleyda waxay tihi naa ninkaa ha ku daalin waxba la heli mayno ninkaa ha ku daalin waxba ma qabadsiin karre waxaa aniga ii yimi nin ay rag isqabteen oo ay sixir u xidheen oo ay qabadsiin kari waayeen maalin galab galbaha ka mid a ayuu meel tuule ah buu ka carraabayoo gurigoo meel yaro fog ayuu u carraabay burca laygu keenay yuroba markaan deganaa ninka dabeedna markuu salaaddii maqrib tukaday ayuu ul yaro leexday meeloo uu kaajay oo iska bi'iyey uu dhaqaaqay mar allaaliya markay weysadii ka jabtay ayaa gantaal waxaynaan dee nabarba halkaa kaga dhacay aan muuqanayn ninkii wuu sooxay barqadii dambe ayaa dadkii waddada marayay ay soo heleen isagoo koomo ku jiraa la ii keenay markaan qur'aankii ku aqriyey ayay wax ka dhaxadleen jibankii la adeegsanayay sixiroolayaashu marka waxay yidhaahdeen intaasoo sannadood baan daba soconnay oo aan jaanis ka weynay galab caynkaasa ayaanu halkaa ka helno markaasaanu gallay hadhow markii ilaahay uu ka saaray wixii ayaan warsado waxaan ku yidhi galabta caynkaa iyo caynkaas ahayd markaad carrowday halkeed kaadida ugu leexatay halkaa markii aad kaadida u leexatay aad iska bi'isay wixii ka dambeeyey maxaad ka xasuusataa markaan kaadidii ka dulkacay aan iska biyey baa war iigu dambaysay bay buuri baa war iigu dambaysay qiso kale oo aniga laftayda ila kulantay nin baan 8 maalmood qur-aan ku aqriyey waana la sixray jinkii ku jiray ee camiilka u ahaa sixiroolaha ayaa markaa wuxuu ku hadlaya carabka ninka 8 maalmood baa wada hadal noo socda dee qiso dheer bay noqonaysaa waqtigay naga qaadasay jinkii markaa wuu muslimay jinkii sixirooluhu soo dirtay martiini baa la odhan jiray magaciisa magacaa baan ku idhoo martiini baa la yidhaahdaa markaasaa casarkii dambe ayaan intaan suuliga galay aan soo istijaystay baan soo noqday anoo weysiisan waan ilaabay waa markuu muslimiid ka bacdi markaasaan qur-aankii ku bilaabay wuxuu yidhi waryahay maxamed war orada soo weysiiso markaasaan ku yidhi war waan weyse qabay maxaad u jeedaa war wallaahi ma weyse qabtid or soo weysiiso hay markaasaan xasuustay inaan weyse qabin waan kacay markiiba waan soo weysaystay markaan soo noqday waan ku idhi martiiniyow maxaad ku garatay inaan weyse qabin waxaan ku gartay buu yidhi difaacaaga jilicsanaa haddaan gaalkii ahaan lahaana waan ku dhaawici lahaa haddaan sidaydii gaalnimadu haysan lahaa wax allaale wax iga kaa xigay ma jirin difaacaaga adkaa marka weysadu waa difaaca waxaana la yidhaahdaa alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa hubka mu'minka haddii aad dagaal ku jirto ood intaad hubka dhigato aad cadowgii afka uga gasho maxay kugu samaynayaan way ku xidhxidhanayaan way ku garbaduubayaan marka alwuduu silaaxu lmu'min waxaan tajribaynay weysada iyo jamaca salaada iyo
صدقة صدح ذا ما دو وقبا وروين داوين تحنون هذا سحرك إيا إيشا إيا حسدك ما نعرف سوي سدة إيا صلاة محام كورا هذا صدقة إيا جمع صلاة صدح ذا ما دو وقا أود بدن صدح ذا الدفاع ذا ما نعرف أنو إنتان بابك كل حجري ما أنت روح النبي الله يعقوب إن بريا إن وحي إن أود إلهي إن سيو ديراتك هي ستية موهوبة إلهي كسية إن أنا تكو قولافت من وأنا تبنانك صوّد اللي إسلقى بسوحي إلهي نعمة كسية وحكوي لمركة النبي الله يعقوب وادخلوا كقلا من أبواب متفرقة البابك لا تكسن كقلا أنيقو هدان يعقوب هيبو لما ما أغني عنكم إذن كما كافين كرو حقنا من الله شيئا أنيقو إلهي إذن كما علين كرو لكن أسبابتها الله إيمانيا إن الحكم حكمك أمصقنان إلا لله إلهي با قدونك إسكاله حكمك إلهي با إسكاله وحو حكمنا أنو معلين كرو لكن كوالد أهان إيو كعالم أهان كالنبي أهان انتان أغهي إن أنه أسبابت الله نماننا لفره عليه توكلت إلهي بان اسكوها الليهي وانتلسارتي وعليه إلهي كركي سؤولنا فليتوكل هاتلسارتو المتوكلون عدي واحتلسارنا